waa barnaamij oo aan ku fiirin doono halgankii RRA iyo Hudur. kadib jabhadii RRA waxay isku urursatay gobolka Bakool iyadoo Haruun ay ka soo duulaan tagaan ka dhigatay tuulooyin ku dhow magaalada Hudur kagana beegan dhanka bari gaar ahaan tuulooyinka Wanay, Abagbeeday iyo Luway Weynay ee ay degto beesha Luway oo la saaray sidii ugu horeynba loo horeyn lahaa degmada Hudur. ciidankii Salbaar ee hooga ku haysay magaalada Hudur waxa uu durba wajahay kuleel iyo guma xabada waxa kala uu la anfariiray miinooyin wax qurbada oo habeen kasta loogu aaso saldhigyada ay maalintii ku qaylaan ee ay difaac ka galaaladani ayaa keentay in shacabkii magaalada ay ka wada shakiyaan oo ay cid kasta oo magaalada ka muuqata saldhigi ciidan ay hooga ku joogeen ku xidhaan qaarna ay si ahaan daro ah ugu dhex toogtaan magaaladoodii. waxay ku afureen fariisamo gaar ah iyagoo maalintiina si hawli ah oo dirqi ah markii ku dhex mara magaalada waxa iska heelad ciidane si ay dadku u ogaadaan in ay Salbaleer weli magaalada ku sugan tahay. doon ee Salbalaar ama Habaaranay ayaa magaaladii ka samaystay 4 fariisamood oo ciidan ka mid ah geesiyaashii RRA ayaa xilligaasi warbaahinta la hadlay. ciidamada diyaarka ah ciidamadan ma rajayaan arrintaas ka kalsoonna maduuna awoodayn ilaa xadka in fiirinay ka kalsoonna waana qobodaan insha Allah taala saasa rajayaan. ciidankii shirkadda Somali Fruities oo iyagu degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hudur kii Hadamalegsay iyaguna degay saldhigga booliska ee magaalada kii Habargedir iyo Muusade oo iyaguna degay xarunta UNICEF ee dhaanta koonfur bari ee magaalada ciidankii Oramada oo iyaguna fariisin ciidan loogu dhigay dugsigii sare ee magaalada Hudur. fiqda RRA meeshan kuma soo koobi kartid waayo waa taariikh weyn. waxaad ka heli kartaan buugga Hudur iyo xusuus qoraa Abdimajid Yuusuf Sakiin goobtaasi ka akhrista oona wax ka ogaada taariikhdii RRA oo sida xaqiiqada maalmaha malka diyaar garoobay inuu cadow uu ka xaqdarada ka weeraray oo magaalada Baydhabo gudaheeda yaro ka jarta inuu ku tafayno han diyaar garoowni weylin baahiya waajibna saarnaa sidii hortaba caadin hayti inuu diyaar garoowna muddo gaaban na diyaar garoow ku suubina muddo gaaban diyaar ku tafayna cadowga weylin baahiya sida awalba caadin hayti in gargaarka maatada dulman oo dhibaatada la kahaya cadowga kahaya maleeshiyada xiseen ay jirta xaqdarada qofkii bay Bakool kana xasuuqaha maatadeeni dadweynaheeni dadkii Islaam waa ona sida caadan hayti inuu naqsi ku deerna inuu ku qabana ya waajibni way kala diyaar oo diyaar lana oo waajibna diyaar garowna badbaadada dadweynaha sida xaqdarada leegumaadahay leen xasuuqahay sida shimbiro kale leen dildilohay والبنك فدينا ديكسون كفدينا عدوات كفدينا والبنك كفدينا